dhacday ay hadal hayaan dadka deegaanka ayaa naxdin ku beertay bulshada ku dhaqan degmada Buuladana kadib markii wiil dhalinyaro ah oo magaciisa lagu sheegay Cabdixaamid Cabdilaahi Axmed oo 22 sano jir ahaa meydkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala degmada Mandheera waxaana xogta warkan laga helay odayaasha deegaanka subaxnimadii hore sida lagu sheegay warbixinta booliiska wararka hordhaca ah ayaa sheegaya in wiilkan uu isaga isdilay ilaa hadda lama oga sababaha dhabta ah ee ka dambaysa dhacdada naxdinta leh taasoo keentay in qoyskiisa asxaabtiisa iyo dhammaan bulshada oo dhan ay amaka ku abuurto maamulka deegaanka iyo saraakiisha biliiska Ramu ayaa si degdeg ah u gaaray goobta iyagoo bilaabay baaritaan la xiriira arintan iyadoo ay wali soo baxayaan tafaasiil dheeri ah ayaa haddana bulshada waxay ka murugoonaysaa geeridin ku timid wiilkan dhalinyarada ah kaas oo la sheegay inuu ahaa wiil karti leh qoyska Cabdixaamid Cabdilaahi Axmed ayaa waxaa soo maray dhibaatooyin dhowr ah sida xogta aan ku helayno aabihiisa Cabdullaahi Koonfareen ayaa naftiisa ku waayay dagaal beeleed ka dhacay Ramu 2013 dhacdadan waxay saameyn weyn ku yeelatay fayoobida qoyskaas taasoo keentay in caruurtiisa ay ka tagaan dugsiyada waxaana ay la kulmayeen dhibaatooyin ay ku jiraan inay isticmaalayeen maanduuriyaha hooyada marxuum ka geeriyooday oo loo yaqaan Maamo Nugule ayaa muujisay dadaal ay caruurteeda ku hagayso dariiqa wanaagsan ee waxbarasho inkasta oo qoyska ay halganada kala kulmeen geerida Cabdixaamid Cabdilaahi Axmed ayaa waxay soo dadejisay muhiimadda ay leedahay in laga hortago isla hadalka taas oo marka dambe keeni karto in qofka uu dhimir beelo warbixinta dambiyada sanadlaha ee biliiska Kenya ayaa muujinaysa in intii u dhaxaysay 2015 ilaa 2018 442 qof inay isku dayeen inay isdilaan waqooyi bari ayaa laga tabiyay tirada ugu yareed ee kiisaskan iyadoo 3 qof oo kaliya ay isdileen xog ay ururisay hay'adda DCI-da ee baaritaanada bilihii u dhaxeeyay April iyo June 2021 ayaa waxaa lagu sheegay in bartamaha Kenya ay ku hogaaminayaan kiisaska isdaldalka waxaana lagu qiyaasay 180 iyadoo oo gobolka Kiambu oo kamid ah bartamaha Kenya oo kaliya laga diiwaangeliyay 109 xaaladood gobolka Rift Valley ayaa kaalinta labaad ku jira waxaana laga diiwaangeliyay 68 xaaladood waxaana ku xiga Nyanza oo 67 ah Nairobi 63 halka gobolka Barina laga diiwaangeliyay 57 xaaladood oo ah dadkii isdilay gobolka galbeedka waxaa laga hayaa 29 qof oo isdilay halka gobolka xeebta laga diiwaangeliyay 14 hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa isdilka ku qiimeeyay inuu yahay arin caafimaad guud oo caalami ah oo halis ah taasoo kamid ah 20 sababood ee ugu sareeya dhimashada adduunka WHO ayaa sheegtay in isdilku ay ka mid yihiin ama ay ka badan yihiin dhimashada marka loo eego duumada kansarka naasaha dagaalka iyo dilalka kale caalamka ku dhawaad 800 oo kun oo qof ayaa u dhinta isdil sanad walba iyadoo lagu qiyaasay 87% kiisaska ay ka dhacaan wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ah Kenya ayaa ku jirta kaalinta 114 oo kamid ah 175 wadan ee ugu badan oo ay ka dhacaan isdilka qaar kamid ah sababaha isdilka ayaa sida ay sheegtay WHO waxa kamid ah shaqo la'aanta guul darrada tacliinta dhibaatooyinka sharciga iyo midka dhaqaale agajugleynta iyo arrimo kale shirkadda iibinta iyo kireynta guryaha iyo dhulalka ee AAA Properties haddii tale ay kugu xumaato taah iyo tiiraanya la tiicaysay soo jireen baa yiri wax la helo haddii la haleeyana la halo tala jirtee aan kula taliyay tilmaamtayda raaco ha turanturoon shirkadda AAA waxaad ka helaysaa kireynta iibinta iyo suuqgeynta dhulalka isteetiyada iyo apartmentyada guryaha ay ku fududeyn karaan si aad ugu tamashlayso waxay ku kala yaalaan xaafadaha Eastleigh, Parklands, South Sea, Syokimau, Nairobi Metropolitan iyo ismaamulada kale ee Kiambu, Murang'a, Kajiado iyo Machakos. Dhulalka iibka ay ku hayaan waxay ku yaalaan Kagundo, Eastern Bypass, wadada Thika iyo Mombasa Road. Shirkadda waxay iibisaa dhulal iyo guryo la hubo mulkiyadooda iyo lahaanshahooda iyo heshiis sharciyadiisa u dhameystiran tahay. Tunisia iyo Uganda iyo Tripoli iyo Togo, Soomaali
dhammaanteed talo waxay ku gooyeen shirkadda Triple A Properties anfacday la yaab kale degdeg aan u gaarno wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir eber 7 2 eber 9 eber 8 6 9 5